nebigu dad buu ku dadaalay dhoobo dhagaxna kuma dadaalin ashyaa kuma dadaalin nebigu waxa uu ku dadaalay waa basharka likulli ummatin amiin wa amiinu ummati abaa cubayda buu rasuulku yidhi ummad walba aamin bay lahayd aaminka ummaddaydu waa abaa cubayda buu rasuulku yidhi wamaa xadasakum ibnu mascuudin fasadiquuhu cabdullaahi ibnu mascuud waxa uu niiga sheekay oo dhan rumaysta buu rasuulku yidhi man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli ljannati man sarahu an yandura ilaa shahiidin yamshi calaa wajhi alardi falyandur ilaa talxa bin cubaydillah buu rasuulku yidhi ninkii jecel inuu arko ahlujanno arrada dusheeda socda ha arka buu nebigu yidhi talxa bin cubaydillah likulli nabiyin xawaariy nebi walba gargaare ayuu lahaa aniga gargaarahayguna waa zubayr buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkoo dhan buu nebigu yidhi jannaday jecel yihiin jannaduna waxay jeceshahay salmaan iyo miqdaad iyo bilaal iyo camaar bay jeceshahay buu rasuulku yidhi mansab ruba ashcasa akbara madfuucun fi labwaab low aqsama cala allahi la abarah minhum baraa binu malik nebigu wuxuu yidhi badanaa kuwa boodhaysan oo timahoogu rifrif ay leeyihiin oo albaabada lagu celiyo oo hadday ilaahay ku dhaartaan dhaartooda ilaahay aqbalaayo baraa binu malik baa ka mida buu rasuulku yidhi nebigu kuma dadaalin dhoobay wuxuu ku dadaalay bashar dad wuxuu u yimiday sida maanta innagu aan ku jirno si ka daran ku nool dadkiibuu dadaal iyo fikri iyo duco u geliyey dadkii waxay noqdeen sidiiqiin bay noqdeen asxaabu maxamed bay noqdeen markii dambe suxba darajad ka sarraysa ma jirto ciisena xawaariyiin buu lahaa baa la yidhi nebi maxamedna asxaab baa lagu magacaabay jamacaddiisii asxaab khaatam alambiyaa bay suxbad la yeesheen saxaabatu maxamed baa la yidhi cali bnu abi aalib baa la weydiiye oo lagu yidhi abubakr asidiiq iyo mu'minka ahla fircoon midkee fadli badan wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee mu'minka ahla fircawn oo arlada laga buuxiyey saacadda abubakar uu godka nebi maxamed kula jiray ayaa ka wada khayr badan buu yidhi daaka rajulun yaktumu iimaanahu kaasi nin wuxuu ahaa iimaankiisa qarsanayey wa haada rajulun aclana iimaanahu abubakarna nin wuxuu ahaa iimaankiisa markiiba muujiyey oo nebiga isgara taagay buu ahaa calayhi salaatu wasalaam fa kuma dadaalin nebigu dhoobada iyo arlada iyo turaabke bal nebigu bini aadankuu ku dadaalay quwaddiisii iyo fikirkiisiina wuxuu ku bixiyey siday bashariyaddu u islaaxdaa siday bashariyaddu ilaahay u garataa dadkana sidee bay ilaahay ugu dhowaadaan dadku sidee bay ilaahay abuuray cilaaqa ula yeeshaan taasuu nebigeennu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam ummadihii hore baa la yidhi mar allii markay ilaahay wax uga baahdaan nebiyaday u sheegan jireen waid istasqaa muusa liqowmihi nebi muuse qoomkiisu markay biyo doonaan nebi muuse yidhahdeen noo weydii ilaahay biyo xawaariyiintu markay doonaan in ilaahay maa'ida u soo dejiyo hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min asamaa nebi ciisey maraynays yidhahdeen noo weydii ilaahay inuu xeedhan noo soo dejiyo reer bani israa'iil markay dooneen in laga bedelo in cuntada samada ka imanaysa looga bedelo oo maaragtaana cunto ay u tabcaan la siiyana nebi muuse u sheegeen ay ku yidhaahdeen ilaahay noo weydii in maaragtaana arlada nooga soo saaro tamaraad iyo mudho walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtiisii la jooga oo khaatamu lambiyaaya oo imaamu lambiyaaya oo ducadiisa la aqbalaayo ayaa ilaahay ku yidhi wa qaala rabbukum adcuunii astajib lakum aniga toos ii weydiista waxaad doonaysaan ducadiina waa niga aqbalayaa khaasiyaadka ilaahay ummadda nebi maxamed uu siiyey bay ka mid tahay nebigii oo dhex jooga baa lagu yidhi ilaahay iyuu ku yidhi iweydiista waxaad doonaysaan waa nin yeelaya aniguna barya waa niga ajiibayaa dhammaan asxaabta nebigu ducadooda mustajaabay ahayd limaada ilaahay bay barteen xadhig ilaahay bay qabsadeen ilaaha khaaliqa cilaaqa dhaba la yeesheen ducadoodii baa noqotay mustajaaba nebi sulaymaan calayhi salaam qoomkiisa nin ducadiisu ay mustajaabo tahay baa ku jiray oo sila billaahi ilaahay cilaaqa la leh markuu doonay carshigii bilqiisin loo keeno maaragtaanay falastiin uu nebi sulaymaan ku yidhi qaala man yaatiinii bicarshihaa qabla an yaatuunii muslimiin qaala cifriitu min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamika cifriit jinka ka mida wuxuu yidhi dhowr saaca ayaan carshiga bilqiisa ku keenay buu yidhi halkaas
قال الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخاوي مفسرين تدقن مقعيسي وحويري أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك القبرس أي عرشك بالقصة كوكيني من اليمن إلى يمارك تاني فلسطين إيقا محوها يستي صلة بالله إلهي بعلاق الله يا شيخ الله إنا فامسي يا قرآن الله إنا فامسي إيمانكنا قلبك الله إنا رادعي حقيقة الإيمان الله إنا السيو هل دعو كليا نقاسي وعالي اسم الله الأعظم كو يغاني إلهي بعلاق الله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي القبرس أي عرش جيب القيس من أرض اليمن إلى فلسطين لقوك يعني القبرس ولكن أصحاب النبي رضي الله عنهم إمس خوارق العادات إمس كسو ظاهرة نلوشو كم سيدنا عمر رضي الله عنه عمر بن عاص مركو مصر تقي dadka reer masar caado waxay u lahaayeen gabadh bikira oo shaabada qurux u dhalatay labadeeda waalintay raalle geliyaan lacag iyo dahab wax walba siiyaan ayay webiga niil ku tuurayeen deedna webigu markaasuu biyihiisu ziyaadayeen deedna markaasay beeraha ku waraabsanayeen caadadii buu ka joojiyey abaar baa dhacday biyihii baa sii gudhaya reer masar waxay u dhowaadeen dalkaba inay ka baxaan markaa buu joojiyey cumar buu u diray risaalo markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin arrintaasaan ku arkay reer masar waana ka joojiyey biyihiina waa sii gudhayaana maxaan sameeyaa markaasuu cumar ku yidhi asabta waad asiibtay buu ka yidhi waad asiibtay ma aragtaanay waad asiibtay laakiin waxaan kuu sheegayaa warqad baan soo dirayaa akhyaartooda iyo cuqaashooda ururiyo webiga niil dul teg warqaddaan webiga ku dul furo ku dul akhri deedna ku tuur buu yidhi wixii ilaahay ka falay meeshaa waad arki doontaa waa cumar qof baa qof warqad u dira taasaa macquula soo maha qof baa webi warqad u dira ka warrama waa sila billaah cilaaqa maca allahi bay heleen dadkaas warqaddii buu keenay warqadda waxaa ku qoran min cabdillaahi bay ka socotaa amiira almu'miniina cumar bay ka socotaa ilaa waadi niil bay ku socotaa in kunta tajri min qablika falaa tajri haddaad awood aad leedahay aad ku soconaysay kuwa baanin ha socon hadduu ilaahay ku socodsiinayay weligaana allaha waaxidkee qahaarka waxaan weydiisanay inuu ku socodsiiyo warqaddii baa lagu tuuray 16 diraac ayuu kor u kacay baa la yidhi webigii ilaa joogadeena webigii isma taagin biamri illaahi yajri amarka ilahay buu ku socdaa reer misir cuqaashoodii iyo salaadiintoodii markay arkeen karaamadaas fadakhaluu fii diin illaahi afwaaja qisada labaad waxa weeyaan sayidina cumar radia allahu canhu oo madiinata almunawara mambarka ka khudbadaynaya ciidankii saxaabiga saariye uu watay falastiin joogay ee gaaladu dhabarjebinta ay rabeen inay ku sameeyaan halkaasuu cumar kala hadlay kelimaad khudbadda aanan ku jirin ayuu ku soo daruu yidhi yaa saariyatu aljabal wa yaa saariyata aljabal yaa saariya xagga buurta yaa saariya dhinaca buurta iska fiiri khudbaddii markuu ka dhaadhacay asxaabtu way yaabeen yaa amiira almu'miniin maanta maxaa tidhi markaasuu yidhi waxaan idhi hadda inii sheegi maaye ciidanka allaha keenay buu yidhi waad arki doontaan jamaacaddii baa soo noqotay fatxi iyo khaniima in la soo laameen iyo khalaba iyo haziima iyagoo soo guulaystay markaasay axwaashii bayaamiyeen maalin caynkaas annagoo dagaalkii u diyaargarownay oo macrakadii dagaalkii uu noo bilaamay ayaa gaaladu dhabarjebin nagu soo sameeyeen fa samicnaa sawta cumar wasta aljibaal buuro dhexdood annagoo marayna hadalkii cumar baa halkaa ka maqallo bay yidhahdeen hadihi cilaaqa maca allah maraat laysa mara aakhirta siirada asxaabta maraat badahay dul mareen badaha asxaabta rasuulku mashuu cala albixaar haddii nebi ciise muuse calayhi salaam qoomkiisa badda ilaahay u kala jeexay bay culimmadu yidhaahdeen asxaabu muxamed nebi maxamed oo la socon ayaa asxaabta nebiga webiyada ay dul mariyeen fardahoogii wahaadaa ibraahim aladham doonni buu la socday doontii baa kacday mawj baddii baa aad u kacday dadkii doonta la socday oo dhan ayqanuu halaag bay dareemeen fasaaxuu sayxa way qayliyeen rag iyo dumar ubad way qayliyeen hal mar keliya uu sheekhi u hurday
hurdadiibuu ka kacay markaasuu arkay doontii oo marna xagga u gadoomaysa marna xagga u gadoomaysa dadkii oo dhanna ay geeri u diyaar noqdeen ay wada qaylayaan markaasuu gacmaha cirka u taagay yaa rabbi araytanaa qudrataka fa arinaa cafwaka ilaahow qudraddaadiina tustee dulqaadkaagiina na tus buu yidhi baddii baa ilaahay fadhiisiiyey mar keliya cilaaqa maca allaahi baa walaal muslimka waaryaada muslimka waxay doonaan ha qaataan gaaladu ninka muslimka waxaa ilaahay siiyey quwad caalamka o dhan haddii loo barbardhigo aan u dhigmayn cilaaqa maca allah siirada ku lama siirada akhrista asxaabu rasuul maxay haysteen caalamka marka la eego quwadda ay gaaladu haystaan iyo asxaabtu waxay haystaan asxaabtu waxba ma hayn laakiin sila billaahi bay lahaayeen cilaaqa maca allah darsigaana ayay ka qaateen khaatamu lambiyaa bay ka qaateen khaatamu lambiyaa ghaswatu daat ariqaac markii asxaabtu ay ka soo laameen waqta duhur geed hadh macaan bay nebiga u dhaafeen iyakuna geedo kaley raadsadeen markaabuu nebigu seeftiisa soo qaaday geedka ayuu sudhay markaasuu nebigu geedkii hoos seexday yaana daba socda nin mushrika oo acraabiya khawrath binu xaaris la dhihi jiray ayaa daba socda reerkiisii baa la soo dhammeeyey dadkiisii baa la soo laayey xoolihiisii baa la soo qaatay imisuu ninkaasi ciidho iyo cadhow haya nebiga asxaabta inuu cidlo ku helo uu u jeedaa nebigoo geedkii hoos hurday keligii asxaabtuna way seexdeen wakhta dahiira weeyaan cadaad waa kulayl geed hadh fiican baa nebiga loo dhaafay seeftiisi nebigu geed ku sudhay uu seexdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii nebiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu nebigu ku kacay rasuulku markaasuu nebigu indhaha kala qaado waaba ninkii oo dul taaganba markaasuu yidhi alaa takhaafunii miyaanad iga cabsanayn markaasuu nebigu yidhi may kaa cabsan maayo markaasuu yidhi man yamnacuka minii ayaa iga kaa mancin kara maanta markaasuu nebigu yidhi allah 3 jeer weli asxaabta nebigu war ka maaya qisada dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane asxaabtiisu war kama qabaan way hurdaan waa sida xadiisku dhigayo seeftii baa ka dhacday ninkii isla markii nebigaa seeftii qaatay nebigu markuu seeftii qaatuu ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay soo kaca buu yidhi way soo kaceen markaasuu nebigu qisadii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay muxuu uga jeedaa nebigu qisadaas ina hada اkhtarada calaya sayfii wa ana naa'imun faاstayqadtuhu wa fii yadihi saltan faqaala lii alaa takhaafunii faqultu laa faqaala lii man yamnacuka minii faqultu allah 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 fasaqada sayfu min yadihi qisada meesha ka dhacday asxaabtu ma joogin laakiin nebigaa uga warramaya muxuu nebigu uga jeedaa qisadaa uga warramaya ya tawakulkuu barayaa tawakul ictimaad cala allah makhluuqoo dhan siduu u dhan yahay laa yataxarak ila biiraadatihi walaa yaskun ila biiraadatihi wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu wain yuridka bikhayrin falaa raada lifadlih laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manact walaa raada lima qadayt walaa yanfacu da ljaddi minka aljad ducaa bacda kuli salaa buu nebigu ducadaa akhrin jiray ummaddana nebigu ducadaa u baray ducadiisu waa iimaan waa nafyiya isbaat qur-aanku waa iimaaniyaad qisasu saxaaba iyo siiradii nebi maxamed o dhan iimaanka ku baraysaa uxud ghaswatu uxud iyo ghaswatu bader ghaswatu xunayn imise duruus baa ummadda nebiga ugu duuban hadday ummadda fahmaysa diin kam duruus fi hada alghazawaat beder 70 gaalay laayeen 70 gaalana way xidheen uxud 70 asxaabtii nebigaa la laayey intaasoo ragna waa laga dhaawacay labadaa ghazo culimmadu waxay yidhahdeen midkee manfaco badan ibn qayim aljawzi zaad almacaad wuxuu ku sheegay ghaswatu uxud ayaa ka manfaco badan buu yidhi ka faa'iido badan ka cibro badan ka duruus badan ka futuuxaad badan buu yidhi kow
talabaad waxaa la ogaaday cadowgii gudaha ku jiray baa la ogaado saddex